caqabadaha bini'aadanimo ee aan badanaa wajahno waa kuwo aan la saadaalin karin sida musiibooyinka aan la filaynin ama dhibaatooyin daba dheeraaday baahida aan u qabno xal u helidda ayaan horay heerkan u gaarin shaybaarka hal abuurka ee arrimaha bini'aadanimo wuxuu odobdhexaad u yahay xal u helidda arrimaha bini'aadanimo waxaan nahay shabakad shaybaaro ah oo xaruntoodu tahay gudaha oo isu keenta daneeyayaasha arrimaha bini'aadanimo si aan oga dhex abuurno iskaashi u dhexeeya kan caqabadu haysato iyo hal abuuraha annagoo isticmaalayno adeegeenna adeegga matchmaker waxa uu soo saaraa caddaymo iyo taageero iyo inaan u baahino hal abuuraha arrimaha bini'aadanimo caalamka oo dhan marka adeegga convenerka muxuu qabtaa caqabadaha arrimaha bini'aadanimo waa sida xujo oo kale ma jirto hay-ad xal dhammaystiran keligeed u haysa badanaa ma naqaan sida uu sawirku yahay ama cidda kale ee haysa caqabad iyo xalkeeda oo iskeenaya adeegga convenerka wuxuu naga caawinayaa inaan qaybahan isu keenno aan ka fakarno hal dal waxaan ugu yeeraynaa buntland waxaana goordhoweyd ku dhuftay cudur cusub oo caalami ah baahiyooyinka waa kuwo xaddhaaf ah marka laga fiiriyo qalabka la isku ilaaliyo ee shakhsiyadeed saabuunta iyo nadiifiyayaasha jeermisdilaha ah maaraynta xogta ilaa iyo raadraaca iyo dabagalka kiisaska cusub ilaa iyo ololaha caafimaadka dadweynaha ee wacyigelinta bulshada deggan meelaha fogfog khataraha uu leeyahay cudurka caalamiga ah iyo hababka looga hortegi karo waxaa jira hay-ado awood u leh in ay caawimaad gaarsiiyaan waddanka oo dhan balse aqoon uma laha halka laga jiro shade wuxuu maamulaa hay-ad maxalli ah oo tababarta macallimiinta anad wuxuu leeyahay shirkad bilow ah oo la shaqaysa iskaashatooyinka tuulooyinka fogfog oo soo saara dharka iyo saabuunta dimitri waxa uu ka shaqeeyaa hay-ad caalami ah oo haysata dhaqaale loogu talagalay in lagu bilaariyo xalalka iyo miina oo iyaduna ka shaqaysa wasaaradda caafimaadka xagga sahayda iyo dabagalka kiisaska cusub waxay martiqaad ka heleen shaybaarka tijaabooyinka arrimaha bini'aadanimo kaas oo ku saabsan siminaar ka dhacay caasimadda buzavel kulanka convenerka dhexdiisa shaqaalaha caafimaadka hay-adaha qaramada midoobe dawladda bahda waxbarashada iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay ayaa wada shaqeeyey si ay u sameeyaan khariirad muuqaaleed oo ka caawis in ay fahmaan dhammaan kuwa doorka ka ciyaaraya xayndaabka ka jawaabidda cudurka caalamiga ah halkan waxaa ku wada kulmay anad iyo miina waxay si wada jir ah u bilaabeen in ay ka wada shaqeeyaan naqshadaynta iyo soo saaridda qalabka la isku badbaadiyo ee xaaladaha caafimaadka anad wuxuu sidoo kale la kulmay dimitri waxayna ka wada shaqaynayaan sidii loo ballaarin lahaa soo saaridda saabuunta ee loogu talagalay bulshooyinka uu ku dhuftay fayraska shade waxay ku xihan tahay hay-ad ka caawisa inay samayso manhaj loogu talagalay macallimiinta ka wacyigelinaya fayraska iyo qaabka looga hortegayo ee bulshooyinka deggan tuulooyinka fogfog laakiin miina waxay weli dareemaysaa in ay wax muhiim ah maqan yihiin waddanku wuu ballaaran yahay iyada oo qaybo cusub uu cudurku ku sii baahayo waxay u baahan tahay in ay caawimaad u dirto bulshooyinkaas sida ugu dhaqsiyaha badan haddii ay keliya heli lahayd xog la ysku halayn karo si degdeg ah oo ku saabsan kiisaska cusub ee soo baxaya taasina mid shade keliya ku kooban maahan kuwo kale oo badan baa waxay dareemayaan in uu farqi jiro si loo qariiradeeyo dilaaca xanuunka ee tuulooyinka fogfog si loo awoodsiiyo jilaayaashan shaybaarka hal abuurka ee arrimaha bini'aadanimo waxa uu ka caawiyey in ay sameeyaan khariirad caqabadeed iyagoo isticmaalaya mabda' uu udubdhexaad u yahay dadka iyo aragtida habaysan si loo gorfeeyo muuqaalka caafimaadka dadweynaha ku nool buntland miina iyo asxaabteeda waxa ay ogaadeen lahaanshiyaha qaab dhaqso ah oo wax looga ogaado deegaanada fogfog in ay tahay caqabad lagu xallin karo hal abuur haddeer waxay isku waafaqeen waxa ay dhibaatadu tahay miina markan way ku wareejin kartaa caqabadan shaybaarka hal abuurka ee arrimaha bini'aadanimo adeegga matchmaker si ay u hesho xal la isku hallayn karo oo jaban waqti dheer kadib uu isbeddel ku yimaado ka jawaabidda cudurka caalamiga ah shade dimitri anad iyo miina waxay dib u eegi karaan khariiradda si ay ugu xirmaan kuwo kale kadibna ka jawaabidda u sii wadaan uma fahmaan caqabadahan marka ay yimaadaan ku soo hagaaji shaybaarka hal abuurka ee arrimaha bini'aadanimo si aad wax uga ogaato si aan kuu caawin karno in aad si wanaagsan uga jawaabto caqabadahaaga